هذا ومهتين بامبي وهرين وحرب هالكان إن كسلام مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية حسن شيخ محمود وزير كشقضي أرمها برشلة عبد الولي شيخ إبراهيم مودي قلها وزير هذا قدوميها قبل كبنادر حلبان هذا شرفت لهالكان فدية هبنا هذا وابري هيجن إذا ماذا بوليس كسراكيشة كله ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ururka dhalinyarada ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed iyo xiriirka guud ururada shaqaalaha Soomaaliyeed oo maanta u jeedaan in calankiisa halkan uu ka babanayo taariikh gaar ah oo ah maanta safiirada dawladaha saaxiibadana ay halkan fadhiya dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo qof kasta oo Soomaali oo shaqaalaha waxa leeyahay hambalyo maanta kooda May maalinta shaqaalaha Soomaaliyeed hambalyo kadib waxaa isleenahay shaqaalaha Soomaaliyeed maanta hadda halkan ku soo koobna dhibaatada haysato ma ku soo koobi karno waxa ogtiin dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed inay badaha ku dhamaadeen iyagoo shaqo doon ah waxaa isleenahay marka hore waxaan rabaa inaan uga tacsiyay waalidiintii iyo eheladii qaraabadii ee dhalinyarada Soomaaliyeed ka dhamaadeen waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadka xigo in dalkan shaqo loo soo raadsado dhalinyarada Soomaaliyeedna ay dad badan kafiil ka noqdaan dad ajnabi ah oo dalkan shaqo u soo doonanaya waxaan rabaa inaan ka faa'iideysanayaa munaasabada kooda May ee maalinta shaqaalaha Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo wasiirka shaqadana ay horteeda fadhiyaan waxaa dhacday taariikh weyn oo shaqaalaha Soomaaliyeed u ahayd 26 bishan oo ay ahayd maalintii shaqaalaha xiriirka guud ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ay doorteen hoggaankoodii iyadoo aanay jirin in si sharaf leh tartan ah ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda uu ku guuleysiyeyna ee shaqaalaha Soomaaliyeed codkooda dhiibteen iyadoo ay isleenahay waxay hormuud u tahay doorashada 2016 bilaha lagu soo aadan dhici doonta shaqaalaha Soomaaliyeed waxay u yihiin lafdhabar bulshada Soomaaliyeed shaqaalaha Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay dawladda Soomaaliya garab istaagaan si dawladda Soomaaliya ay cududeedii iyo xooggeedii dib u soo noqdo dalkaana loo helo dhalinyaro Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo wadajir ah dawladnimadoodii soo ceshtay sharaftii shaqaalaha iyo qof kasta muwaadin Soomaaliyeed ahna loo helo waxaan ku dadaali doonaa helidda bulsho cadaalad ku dhisan xaqsiin daryeel iyo shaqaalaha Soomaaliyeed oo xuquuqdooda helaan waxaan rabaa inaan wasiir Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muuday وانا اسلeenahay waa wasiir madaala ah aan u jeedin xaruntii wasaaradda oo maanta ku shireeno annagoo bari la soo dhaafa ama meydii hore hoteelo ku dhigan jirnay in bishan xaruntii wasaaradda ku dhigan waxay noo tahay farxad gaar ah wasaaraduna waa wasaaraddeeni shaqaalaha Soomaaliyeed haddaan anigu madax u ahayna wasiirka waxaan leeyahay hambalyo waxaa gudatay howl qaran shaqaalaha Soomaaliyeedna way ku xusuusan doonaan sida garab istaaga ah oo garab istaagtay iyo sida shaqaalaha Soomaaliyeed u istaagsantahay inay xaqooda helaan mar raba inaan hadal ka badiyo waxaan rabaa hal arrin oo ku saabsan xuquuqda shaqaalaha maanta in halkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka naga ballan qaado hambalyadii doorashadii ururka xiriirka guud ururada shaqaalaha ee dhacay inuu madaxweynaha na yiraahdo hambalyo shaqaalaha Soomaaliyeedna uu garab istaagiisa cadeeyo waxaan kaloo rabaa xuquuqda shaqaalaha Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u tahriibayaan oo ay badaha ugu dhimanayaan oo ay dambiyada u sameynayaan waa shaqo la'aan 5,000 oo shaqaale ajnabi ah dalka ku sugan iyadoo aan ognahay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha inuu sameeyay sharciga shaqaalaha ajnabi ah haddana waxaan sugaynaa in 5,000 shaqaalaha ajnabiga ah ee haaya shaqada qofka Soomaaliga ee qaban kara ee dhulka loo tirtirayo annagoo gabdhaheena iyo wiilasheena diyaar u yihiin inay shaqadaas qabtaan ma aqbali karo inay ajnabiga ku joogaan waxaan leenahay sharciga shaqaalaha fulintiisa waxaan ka rabnaa madaxweynaha oo uu leeyahay iyo wasiirka in la fuliyo oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo maanta shaqo haysan in lagu bedelo dadkaas ajnabiga ah shaqada qabanaya waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gabagabeeyo xiriirka guud ururada shaqaalaha Soomaaliyeed wuxuu lahaa guryo iyo xarumo waxaan rabaa in anigu halkan munaasabadan uga faa'iideysanayo walaalaheen shaqaalaha Turkiga waxay nagu deeqeen in xarunna loo dhiso dawladda Soomaaliya waxaan ka rabnaa xarunta shaqaalaha oo isleenahay wasaaradda garabna noqon doonta shaqaalaha Soomaaliyeedna waxay heli doonaan xarun weyn oo ay wasaaradda garab ka siiyaan
waxaan rabnaa inuu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maanta noo sheego xarumihii ururada shaqaalaha ay lahaayeen inay fasaxayeen in la dhiso in machadkii tababarka la bilaabo in shaqaalaha soomaaliyeed wixii maanta ka bilaabay ay u istaagaan inay xuquuqdoodii helaan dowladdoodana garab istaagaan udoodaha shaqaalaha waa daryeelka maatida daaweynta cudurrada diidanaanta gaajada la dagaalanka jahliga waa mahadsantihiin dhammaan shaqaalaha soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo munaasabada kowda Luulyo